ديمقراطية تدوينها يو شعبية ديجانك صوماليدا إثيوبيا تدشو الله إليه وانا تغضي حزبية ديمقراطية تدوينها يو شعبية ديجانك صوماليدا إثيوبيا تدشو الله إليه وانا تغضي دائما يوماتي ذي شفت ذو شيء والكود هذا دوسي وسامي حناني يو دريالي ينودت كنا بدكو سيخو دائما يوماتي ذي شفت ذو شيء والكود هذا دوسي وسامي حناني يو دريالي ينودت كنا بدكو سيخو شالية ديدس هاي UK واد مهتسنتينا تصوتمادان maanta waxaan isugu nimid inaan ka qayb qaadano farxadda iyo hambaliyada xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya ee noo 20 jirsaday inta aan gelin anugu arrimaha xisbiga waxaan rabaa inaan in yar horta ka xuso jaaliyada dadaalkeeda iyo jaaliyadu cid ay tahay jaaliyadu waa jaaliyada ugu horeysay ee horta garab istaagta DDSI jaaliyadu waa hormuudka jaaliyadaha ka jira daafaha adduunka waxa lagu yaqaanaa firfircooni ka qayb qaadasho arrimaha la soo dirsa dalkii iyo isku xidhnaansho iyo wadaninimo wax yar hadaan ka taabto sanadkii hore waxyaabaha jaaliyadu qabatay la soo dhaafay waxa kamid ahaa 10 shir oo jaaliyadu isugu timid sidan oo kale oo ay ku garab taagan tahay xaaladii la soo dirsay DDSI
sidoo kale waxaa ka mid ahaa mudaharaadyo ay kaga qayb qaadatay iyagoo muujinaya xumaantii ama wixii qadaf ee yimaada si ay uga hortagaan mudaharaadyo ay qabteen oo muujinayeen sidaas leeyahay jaaliyadu 3 jeer bay waxay ururisay mucaawino ama tabaruc oo ugu dambeysay tii dadkii barakacayaashii lacag gaadhaya ugu yaraan 20,000 oo dollar bay jaaliyadu ururisay isu sacabeeyaan idin dhihi lahaa horta sidaas leeg waxay la qaadatay kulamo badan bay la qaadatay safaaradda iyadoo wada tashiga dalkii iyo kolba waxa la soo darsay kala tashanaysa federaalka marka federaalkana way kala qayb qaadanaysay wixii la soo darsa iyo dawlad deegaankeenaba internally ama gudaha ahaanta jaaliyadu horumar badan bay sameysay ka mid tahay inay website bilowday oo bixisa adeegyada hadii aan la idmo maadaama casri aynu u gudubno adduunkooda casri yahay jaaliyadu website bay bilowday si members ama xubnuhu ay halkaas kaga registereen hadii aan la idmo sida si lamida card ID oo dadka xubinka wadaniyiinta iyo lagu kala garto dadka aan iyagu waqti badan gelin dadkaas card ba iyadana loo diyaariyo loo sameeyay dhammaantiin aad ayaan iniga mahadinayaa kulankan qiimaha badan ee sharafta badan aan isugu nimid ee ka soo qayb gasheen hambalyaan ilaahay dhammaantiinba jaaliyada DDS ee UK ee London haddii aan waxoogay yar isdul taago guud ahaan halkii aynu ka nimid haddaynu nahay DDS iyo halka maanta aynu marayno waxaan rabaa bal in yar inaan inii iftiimiyo inkastoo wada ogtihiin sidaad la socotaanba waddanka 1991kii marka aynu ku soo laabanay aynu deegaan ka nimiday weli waxaa ka sii talinayay dhargigii baa ka talinayay waxaan aaminsanahay dadku way kala nasiib badnaayeen dadka gobolada kale ka yimid way naga nasiib badnaayeen gobolka Faafan ama Jigjiga markaan anagu nimiday Jigjiga waa lana diiwaan geliyay sidii ma taqaanaay xaruntii xisbiga waqtiga oo ay sabaada looranayay ayaa la naga diiwaan geliyay odayadii deegaanka markaasi ku haray ee salaadiinta ahaa ee qabiil walba ahaa ayaa dadkooda waasay oo damiin ka ahaa labadii weekba meesha ayaa la naga xaadirin jiray si loo ogaado wali inaan joogno waxaan noo dheeraa dagaalkii baa socday xagga Eritrea iyo Maqale in lana raafo ayaan ka walwalsanayn haddaynu magaalada ka baxno waxaa dhacaysa in odayada la qabsado ayaan ka baqaynay arrintu iyadoo halka maraysa dhibaatada kale ay dadku qabeen ay kamid ah tusaale haddaan ina siiyo ganacsatada deegaanka Jigjiga markaa ka talinaysay oo qoomiyadaha kale Itoobiya ahayd awood waxay lahaayeen haddii intaad u soo gashidood kaba ka iibsatiraahid ama shaar ama surwaal aad ka iibsatiraahid haddaad isku cabirtid u ku leekaado ama jeclow ama ha jeclaanin ama qaado ama ha qaadanin qasab bay ahayd inay ku yiraahdaan lacagta halka dhig oonad ka hadli kareynin arrinta iyadu mugdigaas la soo maray haddana waxa uu heliyay mangistu khudbadii ugu dambeysay ee dardaaranka ahayd ee uu jeediyay waxa uu isku dayay inuu ma taqaana qoomiyada Axmaarada oo ma taqaana marka farta lagu goday inuu ka jeediyo khudbadiisu meelo badan bay taabanaysay waxa kamid ahayd inuu yidhi Amara marka xabashi loo turjumo ma aha qoomiyad waa dadkii Highlanderska ahaa waa dadkii buuraleyda ku noolaa qoomiyad gaaray ma aha waxa inta dheeraa magistu markuu abaalku Itoobiya u galay sheegayay wuxuu yidhi cadowga ummadda Itoobiya ayaan lafdhabarta ka jabiyay oo laga rajay qabin 30 sano ee soo socda inay dib u soo kabdaan Soomaalida marka uu sheegay jamhuuriyadda ka sokow inaguna la mid baan ahayn inaguna liiska Soomaalida waynu ku jirnay markaa halkaasaan maraynay waxa ka darnaa inuu yidhi dadkan cusub ee maanta waddanka ku soo laabtay 5 sano waxna ma dooran karaan lamana dooran karo 5 sanadood waxna ma dooran karaan lamana dooran karo
ilaahay ducadii wuxuu noogu bedelay 5 sanadood 5 maalmood buu noogu bedelay maalintii shanaad magistu wuu ka duulayba wadanka ilaa iyo haraari buu tagay wadanka waa ka baxay 5 sano 5 maalmood buu ilaahay noogu bedelay arintaas waxa gacanta ku dhigay markaa maamulkii iyo taladii dalka Ethiopia xisbigan maanta wadanka ka taliya oo dhigooda iyo naftooda iyo maalkooda ba soo huburay ee EPRDF oo yiri Ethiopia sidii hore ay u jirtay ee hal qowmiyadood ay madax kaga istaagnaan jirtay ma noqonayso qowmiyadii waliba waa inay iyadu ismaamushaa afkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo madaxweynaha iyo wuxuu oo dhan inay iyagu sameystaan nasiib waxaan u helnaa hadaynu Soomaalinahay inaynu noqono kililka shanaad ee dawladda federaalka Ethiopia oo nahay dadka ugu dhulka labaad ee ugu weyn qowmiyadda saddexaad ee ugu tirada badan Ethiopia oo leeyahay Ethiopia sidii hore ma ahaanayse dhaqaalaha Ethiopia qaydinka lagu kala qaybsanayaa ee wata qaybtiinii biyo iyo jaamacado iyo iskoole iyo wixii aad ku qabsanaysaan ku qabsada markaasi baan ka mid noqonay Ethiopia rasmi oo aan noqonay Ethiopian intii ku horeysay waxaynu ahayn dad aan Ethiopia inay xuquuq ku leeyihiin ama ay ka tirsan yihiin baan loo ogoleyn waxaa dhacday in dadkii Soomaaliyeed ee markaa meesha yimid 1991kii iyagoo Soomaali dagaal sokeeye ka dhacay oo ayna is arki karayn inay 15 xisbi oo 15 qabiil oo 15 calan leh inay kala samaysteen xaqii la filayay inaynu noqono dad uliya diirkeeda 15 aan wada socon oo kala ujeeda arintaasi waxay dhibaato weyn keentay horumarkii deegaanka ka jiri lahaa inuu socon waayo waxaa dhacday aakhirtaankii in xisbigii ONLF qoladii baxdameyn qoladii dalka ku hadhay iyo xisbigii leegadu ay midoobaan oo ay dhaleen xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ah kan maanta aynu harsanayno maalinta aynu yeelanay hal xisbi oo qowmiyadaha Ethiopia ama qowmiyadaha Soomaaliyeed ee wadanka degan ay ku midaysan yihiin ayaan waxay noqonay inaan Ethiopia la tartanno oo Ethiopia ma taqaanaa la ogaaday maanta hoggaankan xisbigaasi oo talada u hayaan gudoomiyaha Maxamed Rashiid iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamuud Cumar inaynu ku tallaabsanay horumarka iyo ma taqaanaa barwaaqadaasi maanta aynu marayno marka alxamdulillah xisbiga hiil iyo qaran baan u haynaa sanad guuradiisii 20aad baan u dabaaldegaynaa inaan ka qayb qaadano anagoo London joogna ayaanu diyaar u nahay aad iyo aad baan xisbiga iyo xukuumadda u garab taaganahay taariikh intaasaan idinku soo koobaya adan hadlan iraano way badanaysaa waqtiguna waa ciriiri aad iyo aad baad mahadsantiin maqalkaadi maqasheen imikana protocol ahaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyadda UK Mudane Ali Abdi Takhal hala soo dhaweeyo waxaan u mahad celinayaa Dr. Hussein oo ah gudoomiyihii hore ee jaaliyadda UK inuuna daadihinaya caawa shirka taariikhda muhiimka ee uu ka sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee dalkeena iyo dadkeena soo mareen haddaan intaa kaga soo noqdo Dr. Hussein caawa waxaan u dabaaldegaynaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia sanad guuradiisii 2aad waxaana leeyahay shacabka hambaliyo war maxaad tidhaahdeen waa maxay caawa yar hurudana caawa dabaaldegi shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Ethiopia 20 jirsaday yani wiilkii xisbigu maalinkii la asaasay dhashay maanta jaamacad buu ku jiraa guul aynu gaarnayno horay loo arag way waana wax maanta waxa weeyaan intaas oo generation iyo xisbigu wax baray haddaan xisbiga aan dib ugu noqdo xisbigu waxa weeyaan marxalado badan buu asaga laftiisu soo maray maamulo badan buu soo maray maanta xisbigu waa ka ansixiyay in maanta shanta qaaradood adduunka looga dabaaldego ee gaadhsiiyay fikirkiisii iyo aragtidiisii kasbadayna dhammaan shacabka Soomaalida Ethiopia meel kasta ku nool yihiin weeyaan xisbigu maanta waxa weeyaan intaas oo kun ama milyan oo ilmood oo ma taqaanaa elementary school ka dhisay weey oo maanta intaas oo ilmood baa maanta dhiganaysa iskuulo waxbarasho waxa deegaankeena ka jira intaas oo jaamacadood baa ka jira nabadgelyada maanta hool Afrika la yahay oo aan ma taqaanaa wax lada jirin waa wax maanta aan ka koone deegaankeenu maanta uu nabad
aad meesha doonta aad ku seexan meesha doontana ku soo maraysa taariikhdeenna haddaan dib ugu laabto taariikhdeenna 20 sano wax ka horeeyo oo dawladoon helay ma jirinba sidii dhulka loo askumay waxaynu ku jiray halgan dagaal mataqaana iyo dhibaataan ku jiray iyo qax boqolaal generation baa u maqan deegaankaas inuu helo maanta waxa uu haysto xisbigu waxa weeyaan aragtidiisu mid gaarsiiyay way maanta in dhammaan shacabkii dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee isu fureen ay maanta isu furan yihiin oo wadooyin laamiya asaaray way mataqaana koona kasta oo deegaankeena oo within your reach oo waligeed la isu marin xisbigu waxa weeyaan intaas oo jaamacadood يعني أني متقنا رجال هذا ما أنت عن فكرت جامعة عدد كفرين أما أمبراج كفرين مجرو حسبي كاني حسبي وهو كاني وحويان كرسي فكر كيس وكل اسمه وي هل يجد النيو بوليس كي أمان كسوي هبيني مالن بأوتاجن سويدا دمقراط النماذا نبت قليدا إيو أمني إيو متقنا وايو هدان أمني تشرين دولة هدان مقشان والله وقضوا ولو an enforcement لو وراقها قرن كقرن متقنا كقرن institution كلي هذا قرن enforcement تجو حويان وعيدنك عيدن الآن وحفشة مشرو فدرال كإثيوبيا بقولال السنة بيتشوجين مش عيدا أمان كوي سجوين إلى الله هلو ويلي شيء أول شيء ديجان كإني أمني كسوان ككورة ولي جن نبضوا من الساحنين وحويان مانتا وحاب هاي ستان كوي أول شيء كذا شيء ولي بالماذا شعبك الردي نبديد كمتقنا أن دول صار نبدأ آمن سنة إن آمن سنين لهان شو يجا دول كإني ليهين أو دتكو ديه أو إن إثيوبيا دول كودية إتوانا أنا مرتوعين إننا يا دول كإسكالة إننا يا أمن جيس متقنا ما تسوقنا إلى مدحوين إلى كدول كحاقة وحويا ما أنت وكوي دجان كل شيء همبلي عن لا همبلي أن سيدوكتين إنه هدينا نهجالية UK جالية يقول رأي متقنا كقرب قاتين نهين نبت قلية ذا يهرمرك الدولة ديان كالصومال إثيوبيا وحعاو فرحد وينيا إن أنكمل ذا أساسياشي كولاد متقنا UK جالية وحلا هذا أساسي إلى ما أنتنا أنو تاجنا هاي أو أن ترسنا يلا تنكا وحسب يقول ترسنا ين لمذا أو أن ما أنت براود كواينا أنا هاي دولة ديان كالصومال إثيوبيا كسوة شيء وضل كي قدرت كي ما أنت وما بك أدون كوسون نقضي ويكون تشير ما بك أدون كاتكور دي سايا أنت كهل تشير لواتن سنة كور يا كهل تشير وعاد شوكت مليشوين يوم تقانا ضد أن قبل جوده أم سنة إن يقوم ديهين ين يدور كليهين يوم تقانا عدد يوم تقانا دبعت كتيرين لكن ما أنت وابري صعب اللقمة قريو دي ساي وحي مريسا ما أنت the highest level of entire life وريجين كاسوي ما أنت مريها هذا من نمط النقطة هذا هرمرك النقطة هذا النقطة ما تقانا مر البوت كأيش هذا وحبرش النقطة وحروا إن عاو فرين كوبان ودرو نمك مجفيا شيء مالها أيها الدولة دينا كعاء إيه إن جبا وحوي الدولة ديان كالصومالية إثيوبيا إيه وحسب الديمقراطية الشعب الصومالي عاو حنلاقي هنبليو بقى دول لبعض ترستين وماشى هذا كليه طبعاً مدحوينه شركة حسبي حتى مالك الدولة تشكيك داعي وماشى أي طبعاً مدحوينه أسا كور رئيسي أي دمانو وذا الدبال دقي سو النبضي ولا التنبكو وذا تشوجين تاريخ ذا كما دعنا هذا نوحنا كسو دوينة قدومي كحيجين كجالية حاجة أمين جسو إنه سوقنا بلبك المدود كيدا هذا dadka sharafta laha beesh ka soo qayb galay waa ognahay waqtiga dhibka ka jira dadka aan joogno ina waqtigan ma taqaana u soo cidlaysaan ilmihiinni iyo reerkii iyo wax walba waa kaga mahad celinayaa tan kale waxaan ku salaamayaa 114 quraanka kariinka cadadkiisa سلام كذب رونانتي لما سو كوبي كرا وحي دباتهم سو مرني iyo waxa maanta la meesha la maray lama soo koobi kara gudoomiyaha iyo mataqaan Dr. Xuseen oo gudoomiyihii saddexaad miya asaga ahay ayaa muddo inay dhameeyeen waxba noo hambaynin marka anigu waxaan rabaa fartiimay inaan u fara nimanka halgamayaalka oo ummadda maanta gacanta ku haya
nafteena qaybteena waan ka wadnaa tanaaba ka mid ah iyo wixii inta la tirinayo hadda jaalida ay qabatay marka waxaan u hambaliyaynayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliyeed maxamed cabdi cumar waxaan leeyahay hambaliya iyo guulaha aad gaartay waan kugu hambaliyaynayaa qof mugdi ah inaan mataqaanaa dhaha wax buu qabtay waa xaraan weey mana dhahayo laakiin waa iftiinka hadda aan joogno oo kale wuxuu qabtay wax la inkiri kara ama wax mataqaanaa la dhaliili kara midna ma ah waa ku hambaliyaynayaa madaxweyne waxa kale oo hambaliyaynayaa asaga iyo mataqaanaa guurtadiisa kabaneedkiisa kabaneedku waxa weey waa inta golaha hoose kula jirto mataan howlaha fulinta waaweyn ku dhex jirta waa u wada hambaliyaynayaa kulligood waxa kale oo hambaliyaynayaa xisbiga dowladda deegaanka Soomaaliyeed oo hogaaminaya asaga iyo maxamed rashiid oo ah afayeenka baarlamaanka waxaan leeyahay hambaliya iskama joogi lahayn meesha hadaan waxba qabanin kartidiina iyo wadaninimadiina iyo mataqaan kalsooni shacabku idin haya ayaad ku joogtaan taas ayaan in kugu hambaliyaynayaa midda labaad dhibaatadii aan ku jirnay lagama sheekayn karayo aniga anoo yar baan halganka bilaabay 13 sano anoo jiraan qori qaaday ilaa maanta oo hadda jaranjarada gacanta li soo saaray u jeedeen waan wada ojiifka laga soo kicinaya ama saan oo kale umada markii laga hadlayo danaheeda waa inaan joogo weey inta noolahay marka dalku wuxuu soo maray waa ogahay annaga waxaanu helay meel xaduud ah oo dhufays ah oo Itoobiya difaac ugu jirto Soomaaliya iskuul ma jirin caafimaad ma jirin wax kale ma jirin horumar ma jirin lagama sheekayn karayo dhibaatadii iyo wixii dalka laga soo maray 30 sanadood ayuu halganka socday nasiib wanaag waxa nooga horumaray guushii inay helaan ururka EPRDF oo asaga 17 sano waday halganka marka anaga 30 sano aan wadnay lama cidna ma aaminsaneen inay mataqaanaa xabad lagu ridi karayo Itoobiya ama boqortooyada isdaba joogo Itoobiya xabad lagu ridi karayo marka xal kale markaan weynay waxa qasab noqotay inaan markaa ku ridnaa xabad taas ayaana lagu guuleystay maantana meesha la marayo waad arkaysaan degmo ama jaamacad ka dhisneen ama dugsi sare oo ka dhisneen malaha waa كنتني اللي حدق موي عن فيلي هذا إنك سوق ذا إن لا قدر يسور قلت هاي طبعا قبل وين بلا كل سنة مالها مات مركا وهم بلينيا إذا كان وإذا ما هالعينيا كسوق قبل كشركة كسوق قشين وما سنتين إما كانوا وحنا كسر دوينيا محمد موجة إنه لبك المدود سكون هالكن كيد هذا وضيع ذا كم ذا وحنا هالكن كسر دوينيا أمان كسلام يا دمان dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan jahliyada aad baan idin salaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan leeyahay farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb gala caawa sanad guuradii 20aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya runtii raggii iga horeeyay baa aad uga warramay taariikhda xisbiga uu leeyahay wuxuu baan ku daray anigu kullee wixii warbixina ee aan hayo walaal xisbigu sidaad ka warqabtaan dadka aad buu isugu soo jiiday intii aan xisbiga la sameyn dadku ay kala qaybsanaayeen waxyaabo badan oo dhibahoo jiray buu meesha ka saaray waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa intaa uu qabtay in ka sii badan ba inuu sii qabto inana waxa la inooga baahay inaynu isbarbar taagno oo aynu la shaqayno waananu u ducaynaynaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa gudoomiyaha xisbiga maxamed rashiid iyo gudoomiye ku-xigeenka madaxweyne cabdi maxamed cumar oo aan leeyahay garabkiina ilaahay ha galo haddii aan wax yar ku daro doorka hore aynu halkan isugu nimi aynu ka wada hadalnay arrimo waxaa jiray isdhexgalka bulshada shacabka Soomaalida Itoobiya oo ku saabsanaa sidii caqabadaha dadka ehelka looga kala qaadi lahaa
ayuu xisbiga laftiisu ka shaqaynayay wanaagii iyo waxtarkii uu ka soo shaqeeyayna waxyaabihii uu dhalay waxaa ka mid ah arrintii maalintii dhaweytaalkan aynu ku soo qaadnay ahayd isdhexgalka waxaan idiin sheegayaa caawa oo farxada oo aan idiin sheegayaa arrintii isdhexgalka weliba gaar ahaan arrintii guurka guurkii caawa wuxuu marayaa 730 buu marayaa dhalinyaradii markaa la isu guuriyey cabdi waxay u bixiyeen kurba gooye qofka bini'aadmiga ee kurbadu hayso marka kurbada aad ka goyso ilaahay baa adigana taculisee ku haysa ayuu kaa gooya dadka guryaha loo dhisayaa waxaa la siinayaa waxay ku noolaadaan shaqa loo abuurayaa waxa weeye waa la dejinayaa marka taargetkuna waa 100 wey waxaanu ka codsanaynaa walaalkay madaxweynaha cabdi maxamed cumar 730 taargetku waa 100 inuu 100 ka dhameystiro hadii la yiraahdo xagan garabkayga waxaa fadhiya odayada jaaliyadaha ugu waaweyn ka mid ah isagana aan rabno kolley 2 kelmadood inuu meeshan ka yiraahdo faarax xasan soo dhawow waxaan u mahadnaqayaa jaaliyada tan London ee sharafta badan ee halka soo camirtay darafada magaalada isaga timi dhamaantiin waqtigoodii soo horay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa 20 guurada tan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya ee Itoobiya ee caawa halka kan meel walba looga dabaaldegay ayaana soo dhaweynayaa waan u mahadnaqaynaa runtii waxaynu aqoon u leenahay anigu nin weyn baan hoodaa intii aan xisbigu jirin xaaladdu siday ahaydna waa garanayaa maantana xaaladdu halkay joogtay horumarka maanta iyo ka kordhay dalkii developmentka dhulkii ka dhacay waynu wada xusuusanahay oo idinna waa ka dheegsantihiin daayartiinanu annana waanu ognahay dhulkii siduu maanta yahay ee xagga caafimaadka iyo xagga wadooyinka iyo xagga iskuulada iyo xagga isdhexgalka iyo xagga nabadgelyada maanta halkuu marayo aqoon baynu u wada leenahay ilaahay mahadii waa ugu mahadnaqaynaa xisbiga iyo madaxweynaha maamulka ee halkaa gaarsiiyey dhammaantood waa soo dhaweynayaa waanu u mahadnaqaynaa waxaynu leenahay dadkeena qurba joogaana dhammaanteen inayagoo isku duuban inaynu la shaqayno oo isbarbar taagno oo wax la qabanno oo wanaaga inoo soo kordhay ku mahadnaqno oo garoonsanaano oo qaybtana iska dayno walaalowno midowno oo aynu horumarka isu kaashano dhammaanteena anigu siyaasaan inoo soo jeedinayaa waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa waxa dalkii ka soconaya madaxweynaha waa u mahadnaqayaa iyo xisbiga iyo walaalnimada isku duubnida shacabka Itoobiya Soomaaliya halku maanta marayo aad iyo aad baan u mahadsantihiin xagii haweenka wali kama aan tagin waxaan u yeerayaa gudoomiyihii hore ee haweenka ifraax inay halkan timaado iyadna 2 kelmadood ay ka tiraahdo in alla intii ka soo qayb gashay shirkan quruxda badan waxaan u mahad celinayaa dadkii soo qaban qaabiyay oo aanu aan kamid ahay isku daree waxa maanta isku mid xuski waxa weyn xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya 20 jirsaday maanta oo farxad ilmihii waaga dhashay uu 20 jir maanta yahay waxaan halkan bogaadin iyo tahniyad uga dirayaa xisbigeena samawade kii waxa weeyaan iftiinka noo furay kii noo horseeday waxa weeyaan nolosha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay ka sokow xisbigeena waxaan salaamayaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya mudane maxamed rashiid isaaq waxa kaloon salaamayaa gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya mudane isla markaana madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane cabdi maxamuud cumar waxaan leeyahay hambalyo kulligood xisbiga waxa weeyaan iftiinku noo furay waxa weeyaan awal dad la yaqaan maanan ahayn maanta caan weeyaan qofka ku tiraahdo DDSI maanta uu ogyahay waxay tahay jigjiga caan bay noqotay goboladii kala caan bay noqdeen waana la bartay maanta waxaana keenay xisbiga iyo madaxweynaha suuban ee maamula aad iyo aad baan u salaamayaa xisbiga ha waaro ha noolaado
قول يا جبني ما الله هادي هاد بندين سلام يا هذا الكوحة رميسي قدومي فوسي خليف يا قدومي علي تخل يا أنت كلا خيارتي هذا الشيء يا هذا الكلامي هادي هاد بندين سلام يا حسب جوهوارو قول يا جبني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنانين تنا قيبتوا هذا السنة كل بقف يرمى يجا اسمه مولي حنقصر دوينا يا دمان فنانين تا inay halkan yimaadaan ay magacyadooda inoo soo gudbiyaan dabadeedna nin walba bal wuxuu ugu soo talagalay xafladaha iyo heesihii iyo dabaaldega oo halkan kaga qayb qaato waxa weeyaan horta maxamuud aan isbaro waa fanaanka Scandinavia aanun heesi jirin aan daawin jiray waana fanaan aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo aniga ururkii kale ku jira igu yiri fadhi ka kac oo heestii dalkayga iyo dadkayga ii dhiibay iguna dhiirigeliyay inaan dawlad deegaankayga dadkayga soo barto marka taariikhda baaldaha uu ka galay walaalkii aad baan kugu mahadcelinayaa xisbigeena waxaan leeyahay xisbigeena Samawadana waxaan leeyahay sanad guur wanaagsan horaa loo soconayaa hanqaraarac lagu ma dhutiyo bagaan ku gaarnay 20 sano إن شاء الله كبر إنه ينقاري دونا عاطو عبد محمد عمر نوحان ليه أبو نولو عذو قاعد عقد هوستيسة أنا قاعد شوقنا مركوا هالكليو بوليس كدين تواتوس على دانتيو سيدي وبحار تكون بدتو إلى صبح بعد وقتها سيدي وبحار تكون بدتو إلى صبح بعد وقتها عنو يا وظافة عنو من بابي يا مرا عنو يا وظافة عنو من بابي يا مرا تانا نيغاشان كو هايو عدو كالي اونكا كمارغي تانا نيغاشان كو هايو عدو كالي اونكا كمارغي عدو كالي اونكا كمارغي تانا نيغاشان كو هايو عدو كالي اونكا كمارغي تانا نيغاشان كو هايو عدو كالي اونكا كمارغي عدو كالي اونكا كمارغي واني داحدايه اما تدرتا افكار ما ديغو امي ولبا واني داحدايه waxaan istareexanigu noqolaa inagu asalkaba aroos dhigane waxaan istareexanigu noqolaaye inagu asalkaba aroos dhigane taananiga shan ku hayo adoo kale uunka kumaarage taananiga shan ku hayo adoo kale uunka kumaarage adoo kale uunka kumaarage taananiga shan ku hayo adoo kale uunka kumaarage taananiga
ishaan ku hayo adoo kale uunka kuma arage adoo kale uunka kuma arage intaan aniga ishaan ku hayo adoo kale uunka kuma arage adoo kale uunka kuma arage intaan aniga ishaan ku hayo adoo kale uunka kuma arage adoo kale uunka kuma arage dhammaantiin aad iyo aad baan horta marka hore idiin salaamaynaa jaaliyadda halkan joogta anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta Soomaaliyeed ee London joogta waxaanu leenahay horta garabkiina aanu taaganahay waxa qura aanu leenahay waxa weeye annagu waxaanu dhinac taaganahay waxa la yiraahdaa nabadgelyada annagu nabadgelyada mar walba aanu garab taaganahay idinka halkan joogana waxa la idinka rabaa isku duubni dadka dalkii joogana waxa loo baahan yahay inaa wax u qabataan oo aanay noqonono inaynu mataqaanaaye aynu halkan uun ku kulanno dadkeena waynu u baahan yihiin inaa mar walba ka qayb qaadataan dib u dhiska dalka marbay daruurtu oota diyaarada lalayo doonyaha barbaa jira duufaanku celiye marbay daruurtu oota diyaarada lalayo doonyahana barbaa jira duufaanku celiye shimbiraha darbaa jira la dirta adigii shimbiraha darbaa jira la dirta adigii haddii aad istiidaan dadna aad culluudaan haddii aad istiidaan dadna aad culluudaan dabaylaha cidda fariimaha igu soo diray dabaylaha cidda fariimaha igu soo diray tiraha aadmiga dabka uga halista doqon ma garatada danahooda kala rida tiraha aadmiga dabka uga halista doqon ma garatada danahooda kala rida dugsi male warkoodii waa kala dilkeenne dugsi male warkoodii waa kala dirkeenne haddii aad istiidaan dadna aad culluudaan haddii aydun tiriistaan dadna aad culluudaan dabaylaha cidda fariimaha igu soo diray dabaylaha cidda fariimaha igu soo diray heesta waa hees cusub ready DSI waa hees loogu talagalay mashaariicaha waaweyn ee deegaankeena ka qabsoomay الله هيقتلنا نون dalkayga u dhoofino garoonka qorraxay ku tegin
jiray allow hayga dilinoon dalkayga u dhoofino garoonka qoraxay ku tegin degmadii shilaabayo taasan dhooba weyn durdurada shidaalka tintimaay kaalo iyo dahabka qaydhiin khayraadka dabiiciga dalkeena laga helaa degmadii shilaabayo daarsan dhooba weyn durdurada shidaalka dintimaay kaalo iyo dahabka caydhiin khayraadka dabiiciga dalkeena laga helaa shaygosh markaan dayo dugsiyada waxbarashe lagu dhigo durustiya dalka iyo beeraha meel kale kuma doorsadeen shaygosh markaan dayo dugsiyada waxbarashe lagu dhigo durustiya dalka iyo beeraha meel kale kuma doorsadeen تبليقو انتو تقسم يهي ديردي عوشيو دويدي حوله دولة تدبر قنايا يا حرية الراديو تعالى ذا حراريو داعو بيئيو تبليقو قسم يهي ديردي عوشيو دويدي حوله دولة تدبر قنايا حتى كدكين لها عمان دبرك الكدمو دوين قلهي دوين قلهي دوين قلهي دوين قلهي حتى كدكين لها عمان دبرك الكدمو دوين قلهي دوين قلهي دوين قلهي دوين قلهي في هذو انتو رمضكو تايد علي تذكي كذا كولانتيو روح على درستابا توبي عانك وبسين توبي عانك وبسيني مرسم دا في هذو انتو روح على درستابا توبي عانك وبسين توبي عانك وبسيني علويا انتو تقول نوشبكو دايما
noloshaba ku daa'ima noloshaba ku daa'ima alluuyo intuu dego noloshaba ku daa'ima noloshaba ku daa'ima ku siiyo calanba ugu wanaagsan abwaan horaa yidhi waxaanu ayidaynaa oo u hambalyaynaynaa dowlad deegaanka soomaalinimada midnimada wadajirka hoggaanka wanaagsan nabadgelyada waxaan leeyahay bagow xisbigu 20 jirsaday aad baan ugu faraxsanahay inaan nabad ku soo gaarno caawa oo ugu dabaaldegayna magaalada London xaflad ballaaran oo sharaf leh oo dad badan ka soo qayb galeen
يا عاو لو قد بالدقي حزب الديمقراطي الشعب الصومالي إثيوبيا waxaan halkan ka ambaliyay madaxweynaha sharafta iyo haybada mudan Abdi Maxamuud Umar madaxweynaha sharafta iyo haybada iyo karaamada mudan iyo dhammaan dawladda baarlamaanka iyo dhammaan wasiirada sharafta iyo haybada mudan iyo ciidanka sida gaarka ah u tababaranay new police-ka Abdi Maxamuud Umar noolo waan ku leeyahay magacaagu hajiraan leeyahay ma sha Allah new police oo dhan ha noolaadaan shacabka yaga Itoobiya waan jecelahay ma sha Allah xaflad fiican baa caawa noo dhacday 20 guuri xusbiga inta iyo in ka badan ha ka sii waaro ma sha Allah runtii wax af aan ku soo koobi karno maaha biyo xidheenka beeraha waxbarashada caafimaadka horumarka nabadgelyada dhammaan dhan kasta oo loo kacaba marka waxaan leenahay xisbiga jir oo joog baan leenahay شجاري عادي